runtii saddexda aag ee Somaliland ay maanta ka soo weerartay magaalada Laascaanood qorshaha dhabta ah ee ka dambeeyay wuxuu ahaa in guud ahaanba magaaladan lagu kala baxo oo laga saaro dadka ka dagaalamaya iyo garaadada meesha ku sugan ciidanka Somaliland ay si buuxda magaalada ula wareegaan ciidan afantari abaana la soo fasaxay oo ilaa iyo 3 jiha ka soo weeraray ciidankii Somaliland ee 3 jiha magaalada ka soo weeraray hal dhuntay iyo hal dhaan raacay miyaa la dhihi jiray yaa laga dhigay wacyi ka soo gaareen garaadada iyo dadka deegaanka hormuudka u ahaa bartilmaameedka goonida marka laga yimaado qorshaha dhabta ah ee Somaliland uga dambeeyay saaka inay weerarkan qaado waxa weeye in 26 bisha intaan la gaarin magaaladan lagu kala baxo maxay tahay 26 marka maxaa jira 26 bishan waxa imanaya Hargeysa wafdi Mareykanka ka socda nin magaaladiisii jooga daaqadana qoorta kala soo jeeda qorigiisuna u buuxa ilaahayna isku xiray niyo ninna kama adkaan karo iyada oo duqeyntaas iyo dhibaatadaas xalay Muuse Biixi ka geysanay Laascaanood ergadii uu sheegayay oo lahaa waan u dirayaa goboladaas iyo garaadada waxa la meel xuduud ay saaqiyay dhulbahantaa ay taagtaagan yihiin horta erga lagu ma tilmaami karo ku soo wado horta erga ma aha waa dad u soo diray waa odayaal waliba kuwii rasmiga ah waa kuwa uu gacantiisa ku sameystay oo uu soo diray in Laascaanood ay soo daawadaan sida uu dhiig u qulqulay iyo sida ay dadka u laayeen wiilashoodii ay soo direen iyagu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دوديال كل سنة هذا برنامج كنا بهذا القيبتن وحين كوينا وركي وجدا بيجي حالة مجال Laascaanood قبل كسول أو ولي وديال كتاجي هاي حقيقي وجدا بيجي ما أنت أو تاريخ لا يتهاي كوي اللي بعتنك بيش فبراير سنة كلا بدأ كوني يستحي اللي بعتنك يعني جدنا وحالنا عجب فردي جولد أو يسقو إيش كوي حالة مجال ما أنت يسدا ووحي هاي قولوا سدو أدبا ما سنتهي صاحبك القعسة داودياشينا وسلامينا ميلول باي برنامجينا كداودا واتهي مقالة Laascaanood oo muddo dagaal ku jirtay maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha Febraayo 2023 maxaan xog ka haynaa xaaladda magaalada Suwaaside runtii 16 maalmood oo dagaal toosi ka socday magaalada Laascaanood iyo duqeyn aan kala joogsi lahayn maanta waxa socda dagaalkii ugu cuslaa oo dhinacyadu aysan waxba isu reebanin oogii hore ee saaka salaadii subax ee ciidanka Somaliland dhowr jiho ilaa iyo 3 jiho damceen inay magaalada ka soo weeraraan oo ilaa iyo gudaha la isla yimaado magaaladaba ay qabsadaan dagaalku aad buu cuslaa khasaaro badanna waa la soo tabinayaa ilaa iyo mar dhowna wuu soo gaadhay inta ogaalkayga ahayd oo wuu socday dhinacyaduna waxay isu adeegsanayaan hubka culus oo Somaliland waliba ugu badnaatay ay duqeyn aan kala aabayeen lahayn ay magaalada la dhacayso runtii saddexda aag ee Somaliland ay maanta ka soo weerartay magaalada Laascaanood qorshaha dhabta ah ee ka dambeeyay wuxuu ahaa in guud ahaanba magaaladan lagu kala baxo oo laga saaro dadka ka dagaalamaya iyo garaadada meesha ku sugan ciidanka Somaliland ay si buuxda magaalada ula wareegaan ciidan afantari abaana la soo fasaxay oo ilaa iyo 3 jiha ka soo weeraray ciidankii Somaliland ee 3 jiha magaalada ka soo weeraray hal dhuntay iyo hal dhaan raacay miyaa la dhihi jiray yaa laga dhigay marka aad deegaankaagii joogto dulmina aadan ku soconin taageerada Ilaahayna haysato maadaama aadan dulmi ku soconin bunduq buuxa iyo daaqad aad qoorta kala soo jeedana haysato Ilaahay baa ka adkaan kara dadka deegaanka ee Laascaanood saaka lagu soo weeraray la rabay in lagala wareego 10 lama ilaa waana iyo maleeshiyaadkii Muuse Biixi u dhigeen marka aynu waxa ay salhan weerarka saaka sida dadka deegaanka ay sheegayaan ay Somaliland ka soo qaaday 3 jiha waajihooyinkii weyn runtii bariga iyo galbeedka horta magaalada way ka xigaan wayna ka soo meelaha ka soo weerar tageen wadadan hawdka ka timaada ee dhankan soo marta Dhabansaar iyadana oo ah halbowlaha dadkan deegaanka ee isku abaabulay Laascaanood
iyadana way isku dayeen inay gooyaan oo ay weerar ka soo qaadaan laba jiho siday tahay baa loogu jabiyay ciidanka SNM guul daraana dhabarka loo saaray jihadan dhabansaar ee wadadan hawdka aada ee gurmadkuba u soo maraya garaadada iyo dadka deegaanka meesha jooga oo ay isku dayeen Somaliland inay maanta gooyaan iyada 10 lama ilaawana loogu dhigay dhankan kale iyagana labada furimood ee kale mid kamida iyadana 10 baa loogu dhigay marka qorshaha dhabta ah ee ka dambeeya weerarkan saaka dhowr siyaabood yaa loo micneeyay horta odayaashii iyo dadka deegaanku way ka hadleen oo mid kamida afayeenada mid kamida odayaasha guddiga ee 33 ahna afayeenka guddigaasi wuxuu sheegay in Somaliland ay soo qaaday weerarkii ugu dambeeyay oo ay rabto inay ku qabsato magaalada laakiin lagu jabiyay ciidankoodii laguna celiyay meelihii ay joogeen iyo meelo ka sii shisheeyay markii laga yimaado hadalka Falaalug afayeenka isaguna waxa hadlay garaad Cabdikariin Cali Nuur oo gurigiisa duqeynta lala beegsaday madfacna uu ku soo dhacay isagoo warbaahintana u soo bandhigay madfaca nooc ahaa iyo sida ay wax u dhaceen faahfaahin ka bixiyay sidoo kale garaad Jaamac garaad Cali ilaaladiisii baa la sheegay in iyagana duqeyn lala beegsaday ay dhaawacyo ka soo gaareen garaadada iyo dadka deegaanka hormuudka u ahaa bartilmaameedka goonida marka laga yimaado qorshaha dhabta ee Somaliland uga dambeeyay saaka inay weerarkan qaado waxa weeye in 26 bisha intaan la gaarin magaalada lagu kala baxo maxay tahay 26 marka maxaa jira 26 bishan waxa imanaya Hargeysa wafdi Mareykanka ka socda oo u socda arintan laascaanood waata marka in aan la islaba gaarin waqtigaas iyo go'aankoodu ahaa laakiin ilaahay ma dhihine weerarkii ugu horeeyay saaka saf balaaran ay soo qaadaan waxa weeye dhabar jab xoog leh ee kala kulmeen dib baana loogu celiyay deegaamadooda waana sidaan ku sheegay horeyo nin magaaladiisii jooga daaqadana qoorta kala soo jeeda qorigiisuna u buuxa ilaahayna isku xiray niyo ninna kama adkaan karo marka jabkii weerarkii ugu horeeyay waliba dad badan oo madaxdooda ciidanka ah yaa durba geeridooda soo yeeraysa oo baroorta durba ay social media yaacaysa marka 26 intaan la gaarin Somaliland go'aankeedu wuxuu ahaa in magaalada lagu kala baxo ay gacan ku haynteeda si dhab ah ula wareegaan wixii ay dili karaan ay dilaan Mareykanku markuu u yimaadana ay yiraahdaan hawshiiba way dhamaatay oo deewaanu ka adkaanay dadkii xasaradaha iyo qalalaasaha waday haddana maamulka nagiba meeshii jooga wax dhibaatoona ma jirto dad ay ka hadlayaan ay meesha soo istaajiyaan qorshuhu sidaas u aha laakiin iyagu haddii ay 26 ka gaarsiinayaan dadka heer laascaanoodna 15 bari ay qabanayeen oo hal maalin oo dheeri ah lagu daray iyaguna ku sifayn rabaan inta waxaan rabaa inaan ku daro iyada oo duqeyntaas iyo dhibaatadaas xalay Muuse Biixi ka geysanay laascaanood ergadii uu sheegayay ee walaha waan u dirayaa goboladaas iyo garaadada waxa la meel xuduud ay saaqiyay dhulbahantaa ay taagan yihiin horta erga lagu tilmaami karo waxa lagu tilmaami karaa hadii horta erayga erga la macneeyo ergo waxa weeye dhibaatadu markay dhacday ee dad ay ka dhex dhacdo labada dhinac ee dagaalamaya dhinac kamid ah erga ma noqdo erga iyo dad nabad labada dhinac u dhex wadaayay ilaa xabad baa u dhaxaysa waa in dad dhexdhexaad ah oo labadoodaba ka madax banaan oo wixii wada la helo kuwaas erga la dhihi karaa dadkan ergada Muuse Biixi uu ku sheegay laascaanood ku soo wado horta erga ma aha waa dad uu u soo diray waa odayaal waliba kuwii rasmiga ah waa kuwa uu gacantiisa ku sameystay oo uu u soo diray in laascaanood ay soo daawadaan sida uu dhiig u qulqulay iyo sida ay dadka u laayeen wiilashoodii ay soo direen iyagu markii erga ma ahayn dadkii musaaracaadka u socday ee rabay inay soo daawadaan laascaanood sidoo dhiig ugu daadanayo shalay bay soo gaareen xuduudda iyo doorkii dhulbaanta isla xalayna isla saakana waxaa bilowday dagaalkaasi safka ballaaran ee Somaliland ay ku duqeynayso magaalada ilaa haddana ka socda taa micnaheeda maantaan kala saarayna oo ay waxa aan layn ka raleynayna barina idinkood kaarihii la idinku wada Muuse Biixi
meesha taga oo daawada sida ay wiilashiinu wax u laayeen yay ahayd waxaan leenahay dadka dhulbahantiga iyo dadka deegaanadaasi ee xaqudirirka ah wadada dhabta ah ee saxda aan ku taagan horta ruux miskiin oo aan qori wadanin hadilina laakiin kuwa loo soo diray inay musaaracaadka meesha ay ka soo fiirsadaan sida wax u dhacayaan abaalkooda mariya wata salaadiintii mid kamid oo shalayto hargeysa markuu soo baxayay la wareystay waxa uu lahaa nabaday buu ku baaqayay marka nin waxa weeye suldaanaha oo nabadaasi raadinaya oo waliba leh iskanaan u aadayna cidina maartay maana wicina xitaa wax wicitaan maana iska soo horreysiinin waxaan doonaynaa inaan ka kor dhacnay Soomaaliya soo duceeyay lagu tilmaami karaa inay u tagayaan inay daawadaan dhiig meesha ku daadanayo niyo nabaday af ah iyo ficilkan madfacaha garab socda saaka ee wiilkiisii uu soo garaacayo isma qabanayso waxa is qabanaya dadka loo sheegaa nabadayda ha kaga dhabeeyo wiilkiisa ha la baxo Muuse bixi ha ku gacan sayro Somaliland iyo waxaan la ordayaan dadka sanka ka galinayaan lama rabo ee meeshooda ha la joogaan iyo xaafadahooda marka kadib nabaday iyo walaalow ruuxii ka diida innaga dhahayna warniyo ruuxaaso waa qaldan tahay nabada qaado laakiin madfac baan wataa wiilkaygiiyo kan adeerka u ahaa iyo kan anigu dhalayba waxay laascaanada isaaka duqeynayaan aniguna anoo dhar cadcad baa waxaan joogaa Hargeysa nabaday ka soo leey waana dhex tagi doonaa dhex tag waxaad ka heshana cidna waxba ka siin Soomaaliland iyadoo markaa hashay weerarka saaka dadka deegaanka ku tilmaamay in lagu soo qaaday oo magaalada saddex jeer lagu soo qaaday nin war ay soo saartay Soomaaliland ma arkin laakiin qorshaha dhabta ah ee dagaalkan saaka wuxuu ahaa in lagu kala baxo laguma kala bixin dib baa loogu kala gurtay Mareykankaasayna u gogol xaaranaysaa oo rabtaa inay waxay la hortagto waxaana la filayaa waftigaas culus ee Mareykanka ka socda inuu runta u sheego maamulkan Hargeysa fadhiya oo waxa laascaano ka socda iyo waxa iyagu sheegayaan iyo balaayadan kale leeyihiin meel baan kula dagaalamayna inaysan waxba ka jirin ee dadkan rabitaankooda sida iyagaba loogu tixgelinay ay tahay in loogu tixgeliyo waxa meesha ka dhacayna laga xisaabtami doono waxa kale oo aan arkay xildhibaano federaalka oo sheegay in dacwad laga gudbiyo Muuse Juudaan dadka oo ku xasuuqaya laascaanood si loogu xisaabtamo xisaab la'aan sanadkan ma dhacayso laascaanood waxa taagan ee joogay hadda duubaya oo warbaahinta caalamiga ah oo documentary ka sameynaysa waxa intii la iska daawado la iskaga tagana ma noqon doonte waxay noqon doontaa wax la iskula xisaabtamo Muuse Juudaan marka xitaa qaran uu ku hoos gabadaan haysanin oo dawladda Soomaaliya ee Muqdisho joogta diyaaradda ka timaada bahasha intay soo toos u timaado oo Hargeysa ay timaado qaadan kartaa waayo wax difaaca oo qoriga AKga iyo madfaca Mereere ee uu soo siiyay odaygii Djibouti joogay uu soo siiyay u dhaafsan ma jirto marka Interpol iyo maxkamadda caalamiga oo ciidamo Mareykan wadata iskama difaaci doonee Muuse Juudaan waa loo yaabaa xitaa maxkamadda waa laga gudbin doonaa waxa dhacaya laascaanood ka dhacayana waa lagu xisaabtami doonaa waa tahay halka markay marayso Somaliland dhinaceedana ay erga ka imanaysaa mar dadkii maartay salaadiin ay ka imanayeen oo ay nabad baan hadinayna lahaayeen xaggana garaadadii magaalada ku sugnaa ay leeyihiin weerar saddex jihan lagu soo qaaday oo qaar ka mid ah ismadiiba guryahoodii maartay madaafiic lagu garaacay oo waxa weeye maanta magaalada dagaal culus baa ka dhacay leeyahay xaggana idin ka socotay leeyahay say marka isu qabanaysaa nabad baa la raadinaya iyo dagaal magaalada lagu soo qaadaya sida dadka deegaanka ay sheegayaan meesha nabad kama jirto wax nabad oo Ilaahay abuurto oo ka jirta ma jirto dagaal baa ka jira wajiga dhabta ah meesha ka socdana waxa jilinka marka laga yimaado waa un dagaalkaas Muuse Bixi wuxuu geed dheer iyo geed gaaban ba u fuulaya inuu dadka laascaanood jooga uu xaaqo kadibna xoog magaalada maran ku qabsado ilaa dad taageeraya hadda ku qanacsan waxa uu sameeyay ma jiraan taasina ma soconayso marka nabadan iyo waxaan la isku maaweelinayo beelihii waxgalka ahaa ee Somaliland iyo dadkii wanaagsanaa ee aqli galka ahaana ay diideen beelo badan baa diiday garxajis baan ogeyn oo daraa tabinaynay haddana qolyo kale ka dambeeyay garan maayo magacoodii waxa ka daba hadlay odayaal kale garxajis soo yiri ما odayaasha la yaqaan ee beesha u hadli kara waa kuwa waligood warbaahinta soo taagnaayo la yaqaan laakiin kuwa dawladdu ka hadalsiisa waa sheekada Cabdi Ilay oo kale kuwa damba waxay yiraahdeen wixii hadal wuxuu xisbiga wadani ee maahan beesha xisbiga dooni ha noqdaan laakiin odayaasha looga yaqaan beeshaas
suldaankii oo jeebka u galay musabix mooyaane isagana meelahaas kala aaday baa la lahaabay ka mooyaane wixii kale odayaashii la yaqaanay ee beeshu lahayd bay ahayd yeelkadeeda ee beesha haday qaarra tiraahdo muusan taageersanahay qaarra tiraahdo war waxan waa dulmi oo waan ka soo horjeedaa kuwa xaq ku taagan baa la raacay oo sax ah laakiin kuwa shilimaadku ka hadlinayaan jeebka musabix ku jira ciidana warkooda hadda ma dhageysanayso kuwa kale oo beelaha Soomaaliland ahna iyaguna way hadleen oo way ka soo horjeedsadeen waxayna sheegeen inaysan meeshaas sabab hadda erga loogu diro ay sansaankeeda ka muuqanin marka hore ay tahay wixii sababi lahaa in si fiican loo wada hadlo la abuuro ciidamada dadka laga soo dulqaado ra'yiga saxda ahna waa kaas ciidamada dadka duqeynaya ka qaad marka kadibna wixii kula hadli waayay waa la arkay aad u maasantahay وأقول ما سيه ده ضيال قطب كان أنت سنكسر قبلنا نودي عنا يوم رجينا دمان ومضى الصوماليات وحان كباقينا إن دي قدرنا اللي جوجيو لما كان واحد الباب هذا اللي وح اللي وقفنا عن سنك اللي قلنا وحوسن رالي كاين أو سن ربين قفنا نروح تلامه ربيتان كيسة يولي بها وحا ويسوق الدونية تبي يكون ضمبه نبت قلي صاحبه